warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyadoo dhinaca kalena dawladda Talyaaniga ay sheegtay inay si buuxda u taageeri doonto shacabka iyo xukuumadda Soomaaliya wariyaheena Cabdiraxmaan Xudeyfi ayaa warkan ka soo diray magaalada Roma madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah oo taariikhi ay ku jooga magaalada Roma ee xarunta wadanka Talyaaniga ayaa kulan maanta waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Enrico Letta ka hor kulankan ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Enrico Letta oo albaabka hore ee xafiiskiisa ku sugayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay salan sharaf si wada jir ah ay kaga qaataan ciidamada qalabka sida iyadoo kooxda baandada muusikadana ay halkaas ay ku garaaceen astaamaha labada dal intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Enrico Letta ayaa u gudbay qolka shirka waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ku welinayay kulankan ra'iisul wasaare xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda Marwa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdixakiin Fiqi wasiirka qorsheynta iyo maaliyadda mudane Maxamuud Xasan Suleymaan wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya mudane Farax Abdulqaadir safiirka Soomaaliya dalka Talyaaniga Danjire Muuse Xasan iyo madax kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Letta ayaa kulankooda kaga wada hadlay doorka dawladda Talyaaniga ee ku aadan arrimaha Soomaaliya iyo sidii loo adkeyn lahaa xiriirka soo jireenka ah ee labada dal kulankaasi gaarka ah kadib ayaa waxa ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay wada qabteen shir jaraa'id oo ay ku faahfaahinayeen kulankoodii maanta ugu horeyna ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in farxad gaar ah oo taariikhi ah u tahay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku casuumo Roma waxaana uu sheegay in ay kaga wada hadleen kulankooda gaarka qodobo dhowr ah dhammaan qodobadii ay kaga wada hadleen ay si weyn isugu afgarteen ase yeeshee waxa uu ku celceliyay in dawladda Talyaaniga ay door muuqda ay ka ciyaari doonto dib u dhiska dalka Soomaaliya il processo di sviluppo della Somalia e per questo motivo abbiamo deciso a margine della prossima sessione inaugurale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York di convocare e partecipare a una riunione con altri paesi insieme alle Nazioni Unite proprio per mantenere gli impegni e confermare gli impegni della comunità internazionale che in questo momento ha tanti altri scenari di crisi ai quali far fronte, ma di continuare tutti gli impegni a favore della Somalia. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna sheegay in uu ku faraxsan yahay sida qiimaha badan leh ee ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ugu muujiyay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya isagoo xusay in Italiya iyo Soomaaliya ay ka dhaxayso xiriir taariikh aad u fog sidaas daraadeedna waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay iskaashiga iyo taageerada dawladda Talyaaniga in ay si weyn ay kaga duwan tahay taageerada dawladaha kale Italy and Somalia has a long relationship in all aspects, historical, sanctions all, and Italy is best placed among the nations of the world to support Somalia, and Italy has been supporting Somalia throughout the Independence Day in the 1960s
And in particular, in the last 22 years that Somalia was in a difficult time, we came here to show the Italian government our gratefulness for this unwavering support that has been given to Somalia. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo oo shalay soo gaaray magaalada Rome ee xarunta dalka Talyaaniga ayaa shalay waxa uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Talyaaniga waxa uu sidoo kale u booqday jaamacadda Rome isagoo halkaasina ka jeediyay khudbad aad u qiimo badan. Cabdiraxmaan Xudeyfi, Somali National TV, Rome, Italy.